daawade anigu waan Nasriin Maxamed ku soo dhawow Bilan Media waxaynu wareysi la yeelanaynaa Nasteexo Cumar Ibrahim oo kamid ah haweenka kaamirawamanada ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho ama ku shaqeysta xirfadda sawir qaadista ugu horeyn soo dhawow Nasteexo midda xigta waxaad nooga sheekaysaa sida ay kugu dhalatay in aad noqoto sawir qaade waxa igu dhaliyay kaamira inaan barto maadaama hooyo aan ahay xirfadda igu fudud aan baran karo inay u qaatay kaamira inaan barto waxaana ka bartay Sodma Academy waxaana bartay 3 bilood oo koorso ah waana ku shaqeystaa shaqadan ka waran marka oo kaamirada iyo sawir qaadista wax dhaqaale ma ka soo gala oo noloshaada dabari karo alxamdulillah fadhi waa dhaantaa shaqada aan isleeyahay shaqada ugu fiican waay tusaale oo kale sawirada marka aad qaado meeqa lacag ka heshaa sawirada sidee baa dadka lacagaha uga siisaa qaabkee u iibsaa wallahi way kala duwan yihiin maalmaha hadda jimco kale ama iido kale waxa sawirada la qaadaa halkii xaba $1 maalmaha kalena $3 la qaadaa marka kugu shaqada badan xilliyadaas waaye iida ama maalmaha khamiista iyo jimcada marka dhaqaale intee leeyahay ka soo xareysaa maalmahaas oo kale wallahi haba si waaye maalmo waxa laga soo xareynayaa adiga 40 mar 30 marna eber baa shaqo la'aan bay noqonaysaa marna waxba ma qabanayso oo kale guriga iska aadaysaa adoon waxba qabanin marka nolosha dhan waxay iska tahay maalina wala helaa maalina wala weynaa dadku ma la qabsadeen marka shaqadan ee sawir qaadista oo kale waa la qabsadeen dad badan baa kaamira jecel in sawiro looga qaado maamooyinka sida anigoo kale hooyo caruur haysto kale caruurteeda markay meel dalxiis u soo wado kale waxay jeceshahay inay sawiro ka qaado sawiro qurux badan wax dhibaato ama kala kulantay shaqadan ama shaqooyinkii kale aad soo qaban jirtay maya shaqadan waa shaqada iigu fiican aan qabanayo shaqooyin kale waa soo qaban jiray hoteelada ka shaqeyn jiray maqaayada ka shaqeyn jiray alxamdulillah rabbil caalamiin shaqadana iigu fudud shaqo aan qabto ka hor shaqadan meelihi aad ka soo shaqeyn jirtay oo maqaayadaha kamid ah ma jirtay wax dhibaatooyin aad kala kulantay way jirtay waayo shaqo adiga aad leedahay ma ahan maadaama shaqaale aad tahay waqtiga waxa laga yaabaa inaad ka soo dib dhacdid ama inaa xanuunsada laga yaabaa waxaas oo dhan lama fiirinayo waxa lagu leeyahay shaqadaada maxaa ugu maqan tahay laakiin shaqadan hadda ani aan ka shaqeynayo shaqo ani aan xirfadeeda ani aan leeyahay waaye kaamiradan anaa iska leh wax culays ay igu hayso hadda culays la isaarayna malaha waan gartay waxaad kaloo ii tilmaamtay inaad hooyo tahay caruur ma haysataa caruur ay joogto 5 caruur ay joogto marka 5 caruur ma adiga u shaqeeyo mise abooda uu joogaa waa uu kula garab galaa raadinta nolosha caruurta abooda wax waa siiya aniga dhinaca ka galaa alxamdulillah rabbil caalamiin waxa soo helaa siista Nasteex marka sidee isugu keentaa shaqadan hooyanimada ah iyo tan sawir qaadista ah adigoo waliba caruur haysatid oo adiga u xamaalay alxamdulillah rabbil caalamiin hooyo iyo walaalo ay garab siiyaan gabar dhalatay hooyo marka maqanay hooyo ugu soo tagaa qeer ilaaha si hooyo ay kaafiso marka bulshada sidee ku arkaan tusaale oo kale marka sawirada la qaadayo kale ragga iyo dumarka way ku kala duwan yihiin dadku yay doortaan haddii aad rag badan meel iskula joogtaan oo kale ay yimaadaan oo ay rabaan inay sawir iska qaadaan adiga may ku doortaan mise iyaga dadku iskugu jiraan dad waxa jira dhahayaan aniga qof meesha nooga soo horeeyay gabdho oo ayagana way ku jiraan oo dhahayaan ma aniga dumar u jeedna maxaa rag muxuu noo taraaya gabadha rabnaa adaa sawir naga qaadaay gabdho dhiirigeliye way jiraan wax badan ragga aad la shaqeysid sidee ku arkaan wax dhibaato ma kala kulantaa oo iyagana sawir qaadayaasha ah oo beertan yimaado oo sawirada dadka ka qaado maya inay dhiirigeliyaan ma ahan wax dhibaato ah la kulmo ma lahan wiilashu way dhiirigeliyaan koorso hadda imaado xitaa waxay dhahaan gabadhana gabar fiican gabadha ku sawirayso gabar ma baahnideen miya si fiican ay isu dhaweeyaan wiilasha meeshaas kala shaqeyn marka imise intee la eg ayaad ku jirtaa shaqadan meeqa ka shaqeynaysa adee muddo 3 bilood ka shaqeynaya sawirana waa qaadaa xalfadana waa duubaa video aroos oo kale waa duubaa marka dadka aad sawirada ka qaadid sidee ugu qancisaa sawirada in ay ka heleen ama in ay ka heli waayaan way ka helayaan maadaama sawirkii originalka loo direenin
sawiro la soo qurxiyo loo diraayo way ka helaan badankooda. dhibaatooyinka kale sawir qaadista lagala kulmo waxaa qayb ka ah in qofkii sawirka kaa qaado sawirka kuu soo diri waayo ama dadkiiba dhinacooda ay ka imaato sheekooyin noocaas oo kale ma la kulantay sawirada marka hore awal hore aniga horta intaa shaqada aan ku cusbaa waxaan sameyn jiray dadka sawirada u hormarin jiray ayadan lacag liisiinin badankooda dadka waxay sameyn jireen lacag iyo ma soo diri jireen laakiin markii dambe aan fahmay sawirada marka hore lacagta loo hormariyaa qofka kadib sawirada u diraysaa waxay ahayd nasteexo Cumar Ibraahin oo aan la yeelanay wareysiga oo idinkaga imaanayay Bilan Media anigoo Nasriin Maxamed ayaa wareysigaasi la yeeshay waa sawir qaado Soomaaliyeed oo ka shaqeysata beerta Banaadir ee Muqdisho iyo meelo kale oo magaalada ah oo sawiro looga baahan yahay maadsanidin